walaal waxaan ku leeyahay kuma amrayo waxaan ka dalbayaa si naxariisa shariidka kooban oo aayadaha quraanka iyo axaadiista iyo qisaska islaamiga ku duuban yihiin cid aad gaarsiin karto dhan gaarsii inta kuugu jirto dhan la sheer galay fariintani maanta waxay tahay inaan ku soo gudbinayno aan ku leenahay ogow oo xusuusnow inaad adoon ilaahay tahay inaadan iloobin wixii lagu abuuray inaadan iloobin maqsadka laga leeyahay inaadan iloobin cidda kaliya wax ku tari karta abaar iyo mushkilad hadaad dareemayso hadaad awlaad la'aan dareemayso hadaad caafimaad la'aan dareemayso hadaad maxaan ku dhahdaayay masiibo iyo dulmi cid ka haysta jiro ilaahay inaad xasuusnatoodan iloobin weeye fariinta saddex misaal baan ku siinaya qisada koobaad waxa lagu tilmaamaa ibn abi dunya kitaabu leeyahay inuu ku wariyay isagoo zuhdiga ka waramay iyo alla bariga iyo cibaadada qofka muslimka ah waxa kale oo wariyay Hasan al-Basri isagoo Anas ibn Malik ka wariyay nin ansaariya inuu ahaa nin ganacsada lagu tilmaamay naasik iyo waric xalaal miirad inuu ahaa xilligii nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam ninkaasi inuu maalin maalmaha kamida isagoo safar doonaya soo maray tuulooyinka iyo magaalooyinka deegaanka bani aadamka kamida oo dhinaca Shaam inay ahayd lagu tilmaamay ninkii waxa uu warsaday cid gaadiidlaya oo uu kaashado oo uu weheshado oo dariiqa marisa waxa loo sheegay nin dadka ka kireeya fardo ninkiiba farda iyo gaadiid ka kireeyay ninkaas oo tuugaha asalkiisa yaa markii wadadii dhexda la sii marayay wuxuu yiri wadadan inagu leex waxa uu yiri war wadadan haynagu leexina tana raadkiya dadka cagtoodu ka muuqataaya ina mari wuxuu yiri may anigu tana qaano tana dhow tana toobiya wadadii ayuu ku hormaray ninkii dabeedna markii hawd halkaas ahiya keenaya dhul qariib la dhex maray iyo togag la maraayo yaa wuxuu tusay lafadad badan oo dhintay waxa uu ku yiri intaasoo aadama ah aniga ayaa dilay waxaana uu qoonsaday inaan furto oo sidaan adiga maanta qaadicu dariiqa kuugu ahay aan maalkaaga iyo dhiigaaga banaysto wuxuu ku yiri maalka iska qaado laakiin dhiigayga ii badbaadi awlaadayda iyo ehelkayga aanu noqdo hooyadayba kaligay dhashay sidii loo hantaatici lahaa ayuu aad u calacalay wuxuu ku yiri inta aan dilayba hadal fiican way yiraahdeen qofna sakama maqal waxa uu yiri waxaan ku yiri warafar rakacadood intaan tukanayo ma ii kaadin kartaa mar hadaad dilayso markaas wuxuu yiri waxa tukataa inta aad rabto waxa uu yiri waxaan bilaabay salaad waxaan isku dhaxwaday ducooyin iyo ayad quraan oo qalbigayga ku soo dhacaysay ayada quraankii waxay amman yujibul mudarra idha da'aa wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard ilahum ma'a Allah ayada qalbigayga ku soo noqonaysay ducaduna waxay ahayd ya wadud ya dhul arsh al-majid ya fa'alu lima yurid ducooyinkaas ayuu akhriyay aghithni ya mughith wa aghithni bi ku'al ali ducada markuu akhriyay ya rakacadihiisa ku dhex jiray yaa wuxuu lusku la hortaagnaa warankii uu ku dili lahaa ayuu la hortaagnaayo dhaqso ayuu lahaa wuxuu u jeeday ninkii oo durbadiiba xagga dambe jaleecay oo dhinaca fiiriyay isagiina salaadii intuu ka baxay buu fiiriyay dabeedna waxa uu arkay nin faras wata oo aad u soo ordayo waadiga iyo toga dhinaca hoose ka soo socda waran ololayana gacanta ku wata ninkii ayaa ku dhuftay markaasuu ninkii dilay waa weydiiyay oo wuxuu ku yiri ilaah baan kugu dhaariyay yaa tahay wuxuu yiri anigu malag baanahay u xil saaran amman yujibu al-mudarra idha da'aahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard anigu dadka mudariinta wadooyinku markay ka xidhmaan dadka ilaahay u laabta dadka alla waafajiyo inay ilaahay u noqdaan kuwaas anigu iska rabtaagaa buuri dabeedna wuxuu yiri yaa muqiith waqithni markaa lahayd albaabka koobaad ee samada gariiray markaas samadana lagu garaacayo garaacidii ka fadhii weynay buu yiri markaas aniga la soo diray inaan adiga ku kaalmeeyo waaniga ku kaalmeeyay buu miyaan orod yara mar hadaan inta kugu soo ajiiban kuugu imid qisada labaad waxay tahay wuxuu ka sheekeeyay adaaciya al-islami dr Aid al-Qarani yaa wuxuu ka sheekeeyay fi qisasihi wa fi muhadarati mid kamida in a'raabihi oo safar galay isagoo safaradiisii ku jira inuu la kulmay awr qooqan oo haa'ijaho jamalaho cilla jooga ah oo dallayso khatara awrkii inuu ninkii caydsaday jabalku hadii ama awrku uu ku caydsadana ka bixi karimays awrkiiba wuxuu yiri waan la warwareegay markuu iqaban gaadhaba waanu jaray dabeedna waxaan arkay mar dambe anoo quustay ayaan arkay god afka soo kala haya godkii ayaan dib u galay anoo xagga wajiga dhulka u soo jeediyay banaanka oo banaanka soo xigsiyo islaha bal afkoon ha kugu cuno intuu lugaha kula dhici lahaa ku jajabin lahaa oo silcsan ka tagi lahaa dabeedna waxa uu yiri in yar hadaan godkii ku jirin qalbigayga waxa uu ku xasiloona
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله يا أمن يجيب المضطر يا أمن يجيب المضطر انت وحنا هين وان إلو بيبوري ولا ليال مرك انت صدو حصوصتي محي أنفعضي تربديبا waxaan dareemay buu culays xagga dambe iga saaran iyo shanqar aad u xoog badan waxaan dib fiiriyay mas'aad u weyn oo godka ka soo baxayaan arkay qarqarkayga ku soo beegan markaasaan idhi buu subhanallah natiijada amma yujibu al-mudarra ma xaggan hadaad u baxdana mas xaggan hadaad u baxdana awrmiya markaasaan wuxuu yiri anigoo aad u naxsan anigoo oo saan weeylayga jiiday ayaan godkii iska sii fadhiyay maskiba qarqarkayga soo maray awrkiiba sanka qabsaday awrkiiya sankan iyo maskiba isqabsado isla tuntay awrkiina maski waa dilay maskiina awrkii wuu dilay labadoodii oo meedan 2 daqiiqo dhexdood soo baxay buu ona yar iska soo baxay anoo saalim ghanima ilaahay igu gargaaray ama yujibu al-mudarra idha da'a misaal kastaxada u dambeeya waxa uu yahay inuu ka sheekeeyay Muhammad Hassan wuxuu yiri raxalaadkayga mid kamid ah ayaan maka tagay muxaadaraan jeedinayay nin baa farta taagay oo igu yiri Muhammad Hassanow ilaah baan kugu dhaariyay waxa alla ila kulmiyay nicmada alla isiiyay aan ka warramo intaadan hadlin caawa waxaan idhi buu tafadal ya sheekh waxa uu yiri ninkii uu hadlay wuxuu yiri ahadu tujaar fi al-khaliij baanahay maal badan baan leeyahay saradaan baa igu dhacay shalal baa igu dhacay oo jirkayga qayb badan ibaqtiday waxa uu yiri noloshaydii baan ka quustay muqcid baan iska ahaayo sariirtaasaan iska jiifay maalin maalmaha kamida ba xajka oo aad loo xajiyayo yaan idhi buu tollaay maalintan meel ka haystay oon talad iyo tabarta hayay maanta talan hayaa tabar baanan hayn shalayna tabar baan hayay talamaanan hayn maalkayga hadaan ka xajiyi lahaa maanta aan sidan u dhintay wuxuu yiri murugadan ima hayseen markaasaan wiilashayda intaan u yeeray ku yiri waryaada igeeya xajka igeeya baan idhi buu anigoo doonaya rabbiga beedka iska leh inaan awoodiisa badan ku bariyo inaan qurbi iyo dhawaansho intaan muujiyo tabartayda intaan tijaabiyo inaan ilaahay bariyo albaab kale oo ii furan inuuna jirin wad garanaysaan taajir maal haysta xuri jarmalka gee ingiriiska gee maraykanka gee faransiiska u dhig talyaaniga u dhig meel walba waa la igala soo qustay buu caalamka wixii dhakhtar ahaa oo dhan waan soo maray waxaan xasuustay kaliya ilaahay baabkiisu inuu ii furan yahay waxaan idhi buu war hal igeeyo saaba lagu geyn wariqaad oo sariirtayda ii dhiga gaarigayga khaaska ah oo igu kaxeeya baan idhi buu wal ikaxeeyayo xaramka la igeeyayo kacbada markaan gaaray yaa la igu warwareejiyay oo la igu dawaafsiyay gaari gacan iyo waxa curyaanka loogu tala galay markaasaan idhi buu wariga dajiya markii la iga dhigay baan intaan siqay kacbada qabsaday markaasaan qaylo intay afkaygu karayay ku shubtay buu ilaan codkii qayladan qaylinay codkii xidhmay buu waxaan idhi buu rabbigi beedkan lahaayo rabbigi abraha ka qabtayo rabbigi muhammad u furayo rabbigi sidan yeelayo rabbigi muuse badbaadiyayo rabbigi fircoon halaagayo rabbigi sidan yeelayo anigana maanta waan ku garan la'aa shalay markaan caafimaad ka qabay maanta on tabar yar ahay baan ku gartay naxariistaada shay walba ka balaadhay ilaahu ii naxariiso waxaan idhi buu lugahaygi ii soo celi ilaahay oo gurigaaga markaan ka baxo ama luga kuway aan kaga baxo ama qabriga iga bixiyo nafta iga qaad baan idhi buu anoo daalay intaan lulmooday baan dhinac u yar dhacay oo wiilashaydii qaadeenoo meel yar seexiyeeno markaan hurdadii ku jiray baa waxaan ku manaamay buu yiri wayda bimunaadi yunaadi iyadoo laygu leeyahay warwad caafimaad oradka anoon isxusuusanin baan farxadii booday buu booditaan booday wallahi alcadiim waa ban istaagi karaa lugaha aan ku taagnahay dadkii la joogay waa kuwana i weydii buu Muhammad Hassanow ilaahay marka ducada qofka mu'minka ah wuxuu kaga faydaa waxyaabo aanu tawaquci karin abaar iyo roob da la sugayay iyo waxyaabo ka weyn baa qofku markay ciriiri la gashay ilaahay kaga faydaa subhanahu wa ta'ala